kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn ee wararka Calandoon TV. Weerar iyo dilal qorsheysan oo saacadii ugu dambeeyay ka dhacay gobolka Galgaduud. Madaxweynaha maamulka Galmudug oo kulan la yeeshay wasiiro iyo taliyaal ciidan. Dil ka dhacay deegaanka Qalanqale iyo xiisad saaka ka taagan halkaasi. Al-Shabaab oo weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb. fadlan haddii ay kugu cusub tahay channelkeena subscribe saaro si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee gudaha dalka iyo caalamka. aynu ku bilaabnay weerar iyo dilal qorsheysan ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa ay ka dhaceen gobolka Galgaduud, iyadoo la soo warinayo in weeraradaas ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar iyo dilal qorsheysan oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. Dilalka iyo weerarka ayaa inta badan ku saleysan aanooyin qabiil. Maleeshiyo beeleed hubeysan ayaa xalay waxa ay rasaas ku fureen goobo maqaayada ah oo dad badan ku sugnaa, waxaana ka dhashay khasaare dhaawac ah. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 7 ruux ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Dhuusamareeb. Waxaa sidoo kale shalay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ka dhacay dilal qorsheysan oo ku saleysnaa aanooyin qabiil. Xiisada u dhaxeysa maleeshiyaadkan weerarka qaaday ayaa maalmihii la soo dhaafay ka taagneyd deegaanada u dhaxeysa Cadaado iyo Dhuusamareeb. Inta badan deegaanada Galmudug waxaa mararka qaar ka dhaca dagaalo u dhaxeeya maleeshiyo beeleed wada dega deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, mana jira ilaa iyo hadda xal laga gaaray soo noqoshada dagaalo beeleedyadaasi ka dhacaya gobolka Galgaduud. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa waxa uu kulan la yeeshay wasiiro iyo taliyaal ciidan, wuxuuna madaxweynaha ku sugan yahay dalka Jabuuti. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo wafdigiisa oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa dalka Jabuuti ayaa kulan la qaatay wasiirada wasaaradaha amniga, arrimaha gudaha iyo taliyaasha ciidamada dalka Jabuuti. Kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray amniga iyo sidii ciidamada Hiil Walaal iyo kuwa Galgaduud iskaga kaashan lahaayeen howlgallada laga hortagayo Al-Shabaab iyo in ay dowladda Jabuuti sii xoojiso taageerada ay siiso Galmudug. Kulanka ayaa waxaa ku wehelinayay madaxweyne Qoorqoor, wasiirada amniga iyo arrimaha gudaha, waxa ayna sheegeen in ay wada shaqeyn wanaagsan ay dhexmari doonto Jabuuti iyo Galmudug. Qoorqoor ayaa sidoo kale kulan la qaatay gudoomiyaha dekedda dalka Jabuuti oo uu kala hadlay dhismaha dekedda weyn ee magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. Dhowaan ayay ahayd markii uu madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor uu gaaray dalka Jabuuti, iyadoona madaxda dalka Jabuuti ay si diiran madaxweynaha ugu soo dhaweeyeen dalka Jabuuti. Waxaana weli halkaasi ka socda kulamo uu la yeelanayo qeybaha kala duwan ee mas'uuliyiinta dalka Jabuuti. Dil ka dhacay deegaanka Qalanqale ee ka tirsan gobolka Galgaduud iyo xiisad dagaal oo saaka ka taagan halkaasi. Deegaanka Qalanqale ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa lagu dilay nin oday ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka salaadii maqrib kadib ee xalay, waxaana saaka halkaasi ka taagan xiisad colaadeed. Dilka marxuumkaasi waxaa geystay koox reer miyi ah oo ku hubeysnaa qoryaha AK47 sida ay inoo sheegeen dadka ka agdhowa halka uu dilkaasi ka dhacay. Deegaanka Qalanqale ayaa waqooyi uga beegan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, waxaana halkaasi ka taagneyd waayadii dambe xiisad u dhaxeysa 2 beelood oo kasoo kala jeeda magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Qalanqale ayaa waxaa hore uga dhacay dagaal u dhaxeeya labadaasi beelood, waxayna iska dileen dad badan iyadoo waan la kala dhexwaday hadda u muuqata mid guul dareysatay. Dilka ninkaasi ee ka dhacay Qalanqale kadib, koox hubeysan oo wadata gaari ayaa weerar ku qaaday dad ku caweynayay maqaaxi ku taala deegaanka Mareer Guur oo dhaca inta u dhaxeysa Dhuusamareeb iyo Cadaado. Inta la xaqiijiyay 7 qofood ayaa lagu dhaawacay weerarkaasi, hal qofna goobta ayuu ku geeriyooday sida ay inoo sheegeen mas'uuliyiinta deegaankaasi, waxaana baxsaday kooxdii weerarkaas geysatay. Ilaa iyo hadda ma uusan ka hadlin maamulka Dhuusamareeb ee ku aadan xiisadan colaadeed ee halkaasi ka taagan.
Al-Shabaab ayaa weerar waxa ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb halkaas oo ay fariisimo u tahay ciidamo Itoobiyaan ah iyo kuwa Jabuutiyaan ah. Kooxda Al-Shabaab ayaa xalay weerar waxay ku qaadeen ciidamada AMISOM ee fadhigoodu yahay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb sida ay sheegayaan dadka deegaanka. Weerarka oo bilowday fiidnimadii habeenkii Jimcaha ee ayna kasoo gudubnay ayay ciidamada iska caabiyeen wuxuuna socday kaliya 15 daqiiqo sida ay sheegeen wararka. Lama soo warin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi. Garoonka ayaa waxaa degan ciidamo isugu jira Itoobiyaan iyo Jabuutiyaan oo la geeyay toddobaadyo ka hor inta aysan magaalada ka bixin gacanta ururka Ahlusunna. Waa weerarkii ugu horeeyay ee Al-Shabaab ay ku qaadaan garoonka Dhuusamareeb tan iyo markii magaaladaas ay noqotay caasimadda maamul goboleedka Galmudug. Magaalada Dhuusamareeb ayaa dhowaan martigelisay wadahadallo 3 wareeg ah taa oo dhexmartay dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ee dalka ka jira. Inkastoo weerarka la iska caabiyay haddana isku daygan wuxuu abuuray su'aalo ku saabsan isu haleynta amniga caasimadda Galmudug iyo beelaha ka muuqda. Ururka Ahlusunna oo horey gacanta ugu hayn jiray magaalada Dhuusamareeb ayaa marar hore ka digay in imaatinka ciidamada dowladda ee magaalada ay horseedi karto dib u soo laabashada kooxda Al-Shabaab. Guud ahaan wararka Calandoon TV maanta